waxa lagu tiriyaa mid kamid ah goobaha ugu ilaalada badan adduunka. waxay gaadhay heer ay madaxweynayaashu dadka ugu ballan qaadaan inay daaga ka rogaan haddii ay doorashada ku guulaystaan. mawduucina maanta waxa uu ku saabsan yahay daawade Area 51 ama goobta 51aad. intayna muuqaalkeena gudaha u gelin daawade haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar si muuqaal kasta soo dhigno uu si dhaqso ah kuu soo gaaro. haddii aad wax ka faa'iideyna u dir saaxiibka si uu isaguna wax uga faa'iido. mahadsanid. منطقة 51aad ama Area 51 waxay ku taalaa dalka Mareykanka. waa mandiqad la aasaasay 1950 waxay mandiqadani ka caawintay gelitaanka dadka xitaa madaxda qaarkood looma ogola inay meeshan galaan maxaa yeelay dhinac walba waxa kaga hareeraysan ciidamo shisheeyana dhinac kastana waxa kaga xidhan kamarada dhaqdhaqaaq walba la socda xitaa in hawada sare diyaaradaha ay marto lama ogola waxaana dusha ka ilaaliya diyaarado balbalaaran oo sida saxniga oo kala waxa jira daawade digniino ku dhajisan wadada tagaysa meesha oo kaaga digaysa inaad gasho ama aad u dhawaato waxaana ku yaala ciqaabo la kulmi karo qofka isku dayo inuu meesha galo ama u dhawaadaba waxaana ciqaabaha kamid ah in uu qofku la kulmo xarig sanad ah ama lacag ganaaxa ama toogasho toos ah oo ay tooganayaan ciidamada meesha ilaalinaya waxay u tababaran yihiin in qofkii u soo dhawaadaba ay toogtaan ama intay soo qabtaan ay xukumaan waxaasoo ciqaabo oo ka dhalanaya gelidda meeshaas in ay meesha yeelaan wax sir ah oo dadka laga qarinayo. haddaba meesha markii la aasaasay sanadii 1950 waxay ahayd meel lagu tababaro dadka duuliyaasha ah laguna sameeyo diyaaradaha. waxay aakhirkiina isku bedeshay meel lagu sameeyo diyaaradaha dagaalka waliba kuwa ugu casrisan iyo diyaaradaha basaasida. 2013 ayay ahayd markii ugu horeysay ay soo shaac baxday yacni ay dadku ogaadeen inay meeshan jirto. ogaanshaha shacabka inay meeshan jirto ayaa waxay dhalisay in meeshan la sii adkeeyo ilaalinteedana la kordhiyo si aanay dadku u khashifin sirta ku duugan meeshan. ilaalada adag ee meeshan ay la gaar noqotay ayaa waxay kaliftay inay dadku ka aaminaan wax aan suurtagal ahaynba. dadka qaar kamid ah ayaa waxay aaminsan yihiin in meeshan lagu hayo nolol cireed ama waxa loo yaqaano alanis. aaminaadda noocaasina waa wax iska khuraafaad ah waxaanay qaar kale ku sababeynayaan in nolol cireedka meesha ay ku hayaan uu watay diyaarado balbalaaran oo meesha dusha ka ilaalinaya. iyadna maaha wax jira maxaa yeelay diyaaradahan balbalaaran meesha ayaaba lagu sameeyay si ay meesha u ilaaliyaan. qaar kalena waxay aaminsan yihiin in meesha iyadoo nuclear lagu sameynayo suntii nuclearka ay dadka soo gaadhay kadib dadku ay jirkooda isbedelay nooc kale noqdeenba. waxaasoo dhani waa waxay dadku u malaynayaan markii ay ka caageen gelista meeshan laakiin xaqiiqada kaliya ayaa waa in meeshan ciidamo lagu tababaro